mudane gudoomiye waxaa maanta sharafay ah inaan hortiina keeno hindis sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeedka iyo ka hortagga afduubka sharcigaas oo asal ahaan dib u eegis lagu sameeyey iyadoo la fiirinayo sharci lambar 36 oo soo baxay taariikhda 30 bishii Abriil 1975 mudanayaal iyo marwooyin waxaa maanta golaha shacabka hortooda yaala loo qiibiyey hindis sharciyeedkan oo dib u eegis lagu sameeyey kaas oo aad iyo aad muhiim ugu ah dalkeena Soomaaliyeed maadaama arrimaha burcadbadeedka aad ogtihiin in hore dalkeena looga eedeeyay isla markaasna markii la fiiriyay shuruucdan aan lahayn sharci khaas u ah arrimaha burcadbadeed inkastoo aan hore u lahayn sharciga afduubka sharcigan wuxuu ka mid yahay xeerarka muddo badan laga soo shaqaynayay wasaaradda cadaaladda oo u dejisan inay diyaariso 17 sharci yuu ka mid yahay xeerkan dib u eegista lagu sameeyay xeerkan wuxuu ka kooban yahay 17 qodob uu ka kooban yahay waana markii ugu horeysay oo sharci noocan oo si madax bannaan loo diyaariyey kaas oo kulminayo burcadbadeednimada iyo afduubka labadaba kulminayo waxaa jira shuruuc kale dalka uu leeyahay oo waaweyn oo uu ka mid yahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed afduubka lagu sheegay qodobka 401 burcadbadeednimada lagu sheegay dambiyada guud ujeedada laga leeyahay sharcigan haddii aan wax ka taabto qodobka 2 oo hindis sharciyeedkan wuxuu tilmaamayaa nidaaminayaa dambiyada ka dhanka ah burcadbadeedka iyo afduubka iyo xukuumada lagu ridi karo faldambiyadaas loo geysto dadka diyaaradaha maraakiibta doomaha isku goosha xuduud badeedka Soomaalida iyo kuwa caalamiga baaxada sharcigan waxaa lagu qoray qodobka 4 faldambiyada ka dhaco dalkeena waxaa baaxada uu leeyahay faldambiyada burcadbadeedka iyo afduubka ka dhaca gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ama dibadda iyo badweynta Soomaalida ay leedahay meelaha loo yaqaano aagaga dhaqaalaha economic zone iyo badweynta Soomaaliya iyo badda continental shelf wixiina baddeena dambiyada ka dhaca sharcigan waa khuseeya xeerkan ciqaabta muddada afduubka ciqaabta lagu ridayo ugu yaraa markii oo dhibaatooyinka burcadbadeedka fara badan dalkeena ay ka dhaceen wadamo badan baa baaritaan ku sameeyey
inaan leenahay sharci burcadbadeed iyo sidii maxaabiistaas markay qabtaan lasu dhaafsan lahaa. waxaan noo soo jeediyey su-aalo fara badan oo la leeyahay dadkan bannaanka haddii lagu qabto oo maxkamado kale ay xukumaan waxaa lagu qaadayaa shuruuc kale oo dalal kale ay leeyihiin maadaama dowladda soomaaliya ay lahayn shuruuc qaas u ah. taasaa keentay sharcigan in la sameeyo. waad ogsoon tihiin dad badan oo soomaaliya in burcadbadeednimo lagu qabtay wadamada hindiya, seychelles iyo wadamo kale lagu haayay. maxaabiis fara badan hindiya markii ay soo dhammaysteen xabsigooda lagu soo celiyey soomaaliya. muddadaas dhan waxaanana weydiinayay shuruuc ma leedihiin arrimaha burcadbadeed oo qofkii haddii la qabto maxaa lagu xukumayaa xeerka ciqaabta soomaaliya. qodobka shanaada marka dembiyada burcadbadeednimada ka hadlayo oo ayadana qodobkan uu sheegayo afduub loo geysto markab ama doon ama gaadiid kale ee badda waddanka gudihiisa ama dibaddiisa asigoo doonayo in la siiyo lacag madax furasho ah. marka hadafka uu leeyahay qofka afduubka samaynayo inuu dhibaato geysto gaadiidka badda kadibna weydiisto in madax furasho la siiyo waxaantana saas ku dhaco. qofkii saas sameeyey marka dembigaas maxaa lagu qaadi karaa? qodobka shanaad fakhridiis labaadaa sheega waxaa mutaysanayaa 15 sano ilaa 20 sano. haddii dil iyo dhibaato kale dheeraada u geystana xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa qabanaya kaas oo ma aragtay ilaa dil faldembiyeedkaas uu gaarayo. waxaa kale muhiim ah qofka dembiga faldembiyeedka afduubka iyo burcadbadeednimada waxa ka og wuxuu waajibinayaa sharcigan inuu soo sheego. hadduu qarsado oo soo sheegi waayo oo lagu ogaado waxaa ka ratimaya arrintaas faldembiyeed oo lagu ciqaabi karo 5 sano ilaa 7 sano. sharcigan wuxuu cafis u fidinayaa qofkii arrimahaas soo ogaado soo sheego si hay-ooyinka amniga ay arrintaas waxa ugu qabtaan. qofkaas waxba laguma qaadi karo maadaama macluumaad oo muhiim ah uu bixiyey. qodobada kale waxay sheegayaan habka loola wareegi karo hantida qofka faldembiyeedka afduubka iyo burcadbadeednimada geystay hantida oo halkaas uu ku helay mise ka keenay in lagala wareegi karo. maxkamadaha awoodda u lehna waxaa lagu sheegayaa qodobka 9aad oo maxkamada derajada 2aad in ay geli karto kadibna uu ka furan yahay keeskaas rafcaan ilaa maxkamada sare. qodobka 11 waa muhiim sababta oo markii burcadbadeedo fara badan la qabtay waxyaabaha dowladda soomaaliya lasoo weydiiyey waxay ahayd heshiis ma naga dhexeeya isdhaafsiga maxaabiist. aad baan ugu rafaadnay arrintaas. markii u dambeysay maxaabiistii la keenay waxaan cuskanay xeerka ciqaabta soomaaliyeed laakiin waxaynu dhaheen iyo habraaca ciqaabta soomaaliyeed. waxaa loo baahan yahay marka dowlooyinka qaar inaan la galno waxaa la yidhaahdo heshiis maxaabiis in la isdhaafsan karo. haddii heshiiskaas jirin waxaa lagu xukumayaa qofkaas shuruucda dalku uu leeyahay. qodobka ugu dambeeya qodobka 14aad dembiyadaas oo badweyntaas mise maraakibtaas lagula kacayo ka sokoow hay-ooyinka dembe baarista booliska marka laga soo tago waxaa awood u leh xeer ilaalinta qaranka inay tallaabo ay ka qaadaan ayagoo raacayo
xeerka habraaca ciqaabta iyo shuruudaha lagu sheegay. waxaa marka dembiyadaas oo lagula kaci karaa, inkastoo haddii dadka dhan lagula kici karo, laakiin waxaa marmar khatar geli kara laciiftimadooda, afduubka caruurta loo geysto, ka ganacsiga dadka iyo xubnahooda iyo jirkooda, ka faa'iidaysiga dhanka jinsiga, askaraynta caruurta iyo dhibaatooyinka loo geysanayo iyagoo la afduubayo. qodobkaasna waxaan ku sheegnay qodobka 15aad. guud ahaan sharcigan faa'iidooyinkaasuu leeyahay inuu xakameeyo dadka dhibaatada afduubka iyo burcadbadeednimada geysanayo, waana sharci dalka iyo dadkaba faa'iido weyn u soo kordhin doono. waa sharci aada u gaaban, 17 qodob wey, wuxuuna kaabayaa xeerka ciqaabta soomaaliyeed. waad og tihiin ciqaabta dhan in lagu madeeyey. marka waxaan aaminsanahay in xeerkan uu sahli doono dadka lagu soo qabtay afduubka iyo burcadbadeednimada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaan kale aaminsanahay dowlooyinka kale oo ku candacoonayo in soomaaliya ay lahayn sharci la xiriira arrimaha burcadbadeednimada iyo afduubka, in caqabooyinkii naga hortaaganaa aan kaga gudbi doono, isla markaasna maxaabiistii soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa lagu haystay aan ku soo celin karno. mudane guddoomiye, aada iyo aada ugu mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka sharafta leh sida ay u dardargeliyeen shuruucda dalka oo hadda dib u eegis badadeeda ku jirto, maadaama dalkeena burbur soo maray. waxaan rajaynaynaa shuruuc badan oo golaha wasiirada ka imaan doonta, kuwii hore oo baarlamaanka horyaalay, in muddaxileedka baarlamaankan ka hor la dhameeyo. aad iyo aad waa u mahadsantihiin.